السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى صاحبيال ومركلي مقال عصوب موقال كنا ما تحن قال دونا ما نكشرح دونا أندريور صدح طبعا أمباريور 13 سين ودوجين أندريور 13 وحال سوداي مدة أفر بلود دقت شوجو أفر تاب بلود كهرنا لو مسوي الدين دمان بموبيل ده كل بموبيل أي لو سوديني الموبيل قاريان إلا مكهرين أو لقى يابين هلام بلا صوص عدا سوق الموبيل قار بأيان جبيهم به الدونين haddaba haddii uu mobilkaagu ahaa guwi hore u helay ama uu yahay guwa imika helay haddii aanu helin laga yaabaa inuu ka mid noqdo guwa heli doono bilaha soo socda. haddaba mobilkeenan oo 12 wuxuu ka mid ahaa guwi helay sanadkan cusub amba bishan January bilowgeeda. haddaba waxaan ku sharxi doonaa farsamooyinkii ugu muhiimsanaa amba ugu cajiibsanaa ee lagu soo kordhiyay Android 13. haddaba ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka. marka ugu horeysa daba laga yaabo inaanad garaneynba sida loo update gareysto mobilka markuu update ku gaaro. waxa muhiim ah mar walba inuu si automatically kugu furnaado oo marka update dhacaba si automatically mobilkaagu isku update gareeyo. haddaba saad soo furatid mar walba automatically uga dhigatid settingska aad tagi doontaa. settingskaaga markaad tagtid waxaad ku dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay software update kan sadka kasana waxaan helnay 9kii January. haddaba haddii aanad helin meeshaas waa in mar walba ku aataa auto download of wifi ama si automatically in isku download gareeyo. haddii halkaas sare ku soo saarmana mar walba waa inaad update gareysaa. haddaba update kan waxyaabo lagu soo kordhiyay meeshan aad ka akhrisan kartaa oo waa farsamooyinka ciida ka badan. halkan ayaad ka wada arki kartaa dhammaan farsamooyinka, laakiin farsamooyinkan qaar badan oo muhiim ah ku jiraan, qaar aan muhiim ahayn oo ku jiraan. waxaan sharxi doonaa inagu 5 farsamo ee ugu muhiimsan. haddaba farsamada koobaad ee u arkay inay muhiim xooga tahay waxa weeye in Android 13 amba Android 13 aad loo fududeeyay oo mobilkan Android 12 wuxuu ahaa yani yara culays ay laga dareemi jiray, laakiin xitaa imka dalkan sad ka dareemi karaysid culayskii in badan waa laga saaray oo waxa laga dhigay mid aad iyo aad u fudud oo marka isticmaalaysid runtii waad ka dareemi doontaa inuu yahay Android 13 version amba aad u fudud oo update aad fiican weeyaan. farsamada labaad ayaa iyadana waxa lagu soo kordhiyay qaybta wallpaper-ka ama style-ka iyo saacadii waxyaabaha la mid ah. hadda farsamada ayaa iyaduna waxay tahay markaad xaqan san soo tiraahid aad wallpaper aan style ka tagtid meesha sin wadoogeyn haddaynu qaybta imka saacada ka ku dhufano lock screen-keena mobilkeena lock screen-ka iyo wallpaper-ka caadiga ah farsamooyin aad iyo aad muhiim ah oo kala mid yahay iOS 16 ayaa lagu soo kordhiyay. sin wadoogeyn saacada markii hore awood uma inaan lahayn inaan wax ka bedelno oo kaliya tan nooca bay ahayd. imika waxaad awood u leedahay dad ku dul dhufatid ugu horeyn waxaad awood u leedahay horta markii hore saacadu noocan ay noo ahayd oo color iyo waxyaabo inoo ma lahayn. imika waxaad awood u leedahay dhammaanba noocyadan ayaa lagu soo kordhiyay oo xitaa waxaad ka dhigi kartaa intaasoo nooc ayaa lagu soo kordhiyay oo aad awood ugu leedahay inaad u bedeshid saacadaada. sidoo kale qaybtan hoose markaad meeshan inaad ka dooratid qaybtan kale waxaad ka dooran kartaa meesha ay oolayso nooca ahaana saxiita labada nooc kale oo iyagana farsamooyin aad u muhiim ah oo iOS 16 lagu soo kordhiyay ayaa bartan lagu soo diray farsamooyin aad iyo aad muhiim ah. sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad adigu gacantaada ku soo weyneyn kartid ama aad ku yareyn kartid ama wax ka dooran doontaa noocyadan. marka dooratid haddaba meeshan waxaad awood uga leedahay kalaro oo saacada marka hore siin wada ogeynba wax kalar awood uga meelan lahayn. imika markaan saacadeena saa ka dhigano in kalarka rabno doorano dhan u baa soo siisan doontaa oo saacadaad waa time ka dal looga ku xirno mobilkeena nooca ay noqon doona lock screen-keenu oo saacadii ay noqon doontaa. soo kale farsamooyinka kale iyagana halkan lagu soo kordhiyay waxay tahay farsamada kale iyagana aad iyo aad muhiimka lagu soo kordhiyay waxay tahay qaybtan ka hooseysa saacada marka hore kaliya tan nooca bay noo ahayd oo noocii ku soo degeen baan awood u lahayn. imka waxaad ka dhigan kartaa iyadoo details ah oo de wixii lagu soo diray faahfaahsan inaad ka aragtid iyo kaliya tayn ku tuso icon-ka hadii lagu soo garaacayna aanad magacii cidii ku soo garaacday ama message-ka aanad arag ee kaliya tad aragtay un meesha message-ka lagu soo diray ayada awood uga leedahay. soo kale waxaad awood uga leedahay hadda dhan meesha soo siino qaybta lock screen-ka amba wallpaper and style-ka meeshan waxaad ka qaadi karaysaa kamerada iyo phone-ka. marka hore awood uga ma lahayn in ka qaadno labada midna oo imika waxaad awood u leedahay inaad application-ka doontid aad ku soo darsatid oo isagoo looga mobilkaagu kugu xiran yahay soo gali karto. halkan minus camka hadaynu ku dhufano balaas soo nidhaahno halkan application-da meeshan kaaga muuqda ayaad awood uga leedahay inaad soo saaratid
halka iconka soo kale contact information kana settingska laga tagi jiray oo meeshan waxyaabaha rabtay ay ku qori doontaa yani tusaalaan wax lagu soo eekro mobilka hadii uu kaalumo iyo hadii kale intana farsamooyinka qaybta log screen ka farsamooyinka ayaa lagu soo kordhiyay soo kale qaybtan kale waxa lagu soo kordhiyay color palette kan oo color badan oo hore aan ugu jirin loogu soo daray inka color palette ka hadaan furano meeshan colorada nooca laaliya nooca rabtid ayaad ka dooran doontaa oo dhammaan bashashadaadu nooca ay isku bedeli doontaa kaliya tan apply baaran doontaa qaybtan iyadna browse my wallpapers kan waxa lagu soo daray qaybta gallery-ga horta qaybtan iyada waa la yar nidaamiyay wax saas lagu soo darin qaybtan hore ayuu lahaa features-ga kaliya waxa lagu soo kordhiyay qaybtan graphical-ka oo waxa awood u leedahay wallpaper-rada design-ka quruxda badan leh inaad saaratid soo kale colors-ka qaybta color-rada inaad iyagana saaratid iyo wallpaper surfaces-ka iyo qaar aad la degaysid farsamada saddexaad ee lagu soo kordhiyay Android 13 amba Android 13 ayaa waxa iyaduna tahay inaad application walba u sameeysan kartid luqad gaar ah oo application walba aad dooran kartid luqadiisa marka hore hadaynu doonayno inuu language-ka apps-ka wax ka bedelno kaliya waxa qasab nagu ahayd inaynu hal mar doorano oo dhammaan ba isbedelaan apps-ka language-kooda hadaynu Carabi ka dhigano apps-keena oo dhan Carabi ay noqdaan iminka waxaad awood u leedahay inaad application-ka aad u baahan tahay oo kaliya aad luqadiisa dooratid si aad u sameeysid farsamadana kaliya soo furo settings-kaaga kadib waxaad timaadaa apps meesha ay ku qoran tahay app-ka aad u baahan tahay markaad tagtid tusaalaanka Chrome-ka aynu ku tijaabin doonaa markaad app-ka aad u baahan tahay timaadid meeshan waxaad ku arki doontaa meel ay ku qoran tahay language-ka aad ku dhufan doontaa luqadaha soo dhammaad ka dooran kartaa laakiin luqada kuma jirto Soomaali imka hadaynu ka dhigano Carabi application-kan gabigiisu wuxuu isku bedeli doonaa Carabi oo meesha wax laga baaray iyo meel walba waxay noqon doontaa qaab Carabi hadaynu eegno oo application-ka imka saartaan sayno aragno gabi ahaanba application-ku wuxuu noqday qaab Carabi oo nooc wuxuu isku bedelay language-ka Carabiga laakiin waxaan ka xumahay inay ku jirin luqadda Soomaaliga laga yaabo inay ku soo daraan hadhowto balse imka waxa ku jira luqado kale oo Carabiga iyo luqado kale oo aad iyo aad fara badan oo meesha dhamaantood ba ka arki kartid farsamada afraad ee lagu soo kordhiyay Android 13 ayaa iyaduna waxay tahay markaynu mobilkeena ama cameradeena sawir ku qaadno marka hore kaliya sawirka baa la arkay oo wax watermark amba waxyaabo kale mu raacnayn balse imika waxaad awood u leedahay in markasta la si automatically sawir kasto mobilka ku qaado inuu ku raaciyo watermark aad ugu tala gashay oo magac hoosta kaga qoro talaan imika waxaad soo furan doontaa kamaradaada kadib meesha settings ku qoran tahay baad tagi doontaa korba soo doontaa meesha waxa ka arki doontaa meel ku qoran tahay watermark waad furan doontaa haddaadaynu ku soo dhex dhufan doontaa saynu ka arkano imika watermark markaynu furano hadaynu sawir qaadno waxay noogu qoran Galaxy A2 alif amba magaca mobilkaaga ayaa kugu qormi doona balse waxaad awood u leedahay inaad magacaas ka bedeshid imka hadaynu shift official ba ku qorano magacaayada awood u leedahay inaad iska bedeshid magacaaba imka noogu qor soo kale waxaad halkan hoose awood uga leedahay inaad saaratid date and time oo xilligii sawirka la qaadaya labadaaba mar walba oo sawir mobilkaaga lagu qaado si automatically wuxuu dhigi doonaa qaybta hoose oo ku raacin doona soo kale fartaan ay yihiin waxaad ka bedeli kartaa oo nooca rabtid ba ka dooran doontaa soo kale meeshu yeelmay waad ka dooran kartaa imika hadaba markaynu soo furano hadii intii jaabino sawirkaas baynu ka sawirnayba sad ka aragtaan meesha hoose ka raaciyay magacayna ku saaf gareysanay iyo taariikhdiiba markaas automatically sawiradaada waad u saaran karaysaa sawirba warba oo mobilkaaga lagu qaado inaad watermark amba magacaad ugu tala gashay saaratid sidoo kale farsamada muhiimka ee ugu dambeysay lagu soo kordhiyay Android 13 ayaa waxa lagu soo kordhiyay qaybta notification bar-ka ama qaybtan sare markii hore waxa lagu soo daray saddexdan farsamo modes color inversion iyo high contrast fonts modes-kan hadaynu ugu tala eegno modes-kan wuxuu ku siinayaa noocyadaas oo dhan oo xaalado tusaalaanka mobilkaaga haddaad hurdooda sleep ka dooratid wuxuu mobilkaaga u qaabayn doonaa qaabkii yani inaad hurdo kale oo wuxuu midow ka dhigi doonaa dhammaan baan shaashada mobilkaaga soo kale driving hadii aad gaari wadid oo kale hadii aad jimicsanaysid adoo hadii aad shaqo ku jirtid halkan wax ka dooran doontaa mar walba xaaladda aad ku jirtid oo imika sleep hadan ka doorano mobilkeena wuxuu ka dhigi doonaa sida arki doono sida aragtaanba mobilkeena gabi ahaanba midow ayuu ka dhigay oo qaabkii inaan hurudno oo mobil ba isticmaalin ayuu ka soo qaaday hadda doonaysid ka soo noqotidna kaliya meesha baad ku dhufan doontaa waka caadigiisii kugu soo celin doonaa
farsamadan kale ayadna lagu soo kordhiyay waxay tahay color inversion farsamadan ayaduna waxay meel color walba oo midowga ay u bedeli doontaa cadaan yani midowgii cadaankii meel kasto midow hay cadaan bay ka dhigi doontaa meel kasto cadaan ahaydna midow ay ka dhigi doontaa farsamadan iyadu notification kan xabadan xoog muhiim maaha tan u dambeysana high contrast fonts kaasina waxay ka dhigi doontaa farta mobilkaaga ay wax ka bedeli doontaa oo ay ka dhigi doontaa yani qaab waaweyn oo kale farsamooyinka lagu soo kordhiyay Android 13 aad iyo aad bay badan yihiin waxaanad ka akhrisan doontaan meeshii laakiin se shanta farsamo ayaan u arkay inay muhiim yihiin amba u baahan tahay inaad ogaatid intaas ay ku soo gaweyn doona muuqaalkeena aad uga faa'iideysanaya fadlan hadday tahay boqoshadaada kuwaad subscribe saar videogana like saar aad iyo aad baad mahadsantahay